بسم الله الرحمن الرحيم رئيس وزراء دولة فدرال الصومالية مدن حسن علي قير قدوميها برلمان كونفور قلبيت مروده مدحوينها دولة جولات كونفور قلبيت وزير ردا يحلباندا فدرالكا يحلباندا يوزير ردا دولة جولات كونفور قلبيت حيرلاليها جود قرنكا قدوميها محكمة السريع دولة جولات كونفور قلبيت odayaasha dhaqanka ururada bulshada haweenka dhalinyarada aqoon-yahanada ciidamada qalabka sido saraakiisha inta fadhido oo ugu horeeyo taliye ku-xigeenka ciidanka sector 3 iyo saxaafadda iyo kooxda qaranka koonfur galbeed ee Janaawkay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بعد السلام runtii sharafay noo tahay caawa inaan halkaan u fadhino casho sharaf aan u samaynay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigii la jiray oo aan ka soo wada qayb galnay dadka mas'uuliyiinta iyo madaxda inta joogo oo reer koonfur galbeed ayaga oo ku faraxsan ay ku sagootinayaan ra'iisul wasaarahooda. Ra'iisul wasaaraha waxaan ka sagootinayno وعباية بكون كونفور قلبين ملكا موسى بحين حد وصي السعداء سفر كي سبريتا أو وصي على الشمال لدى هوسي حرمتي دولكا
shaqadeedana way socotaa mudane ra'iisul wasaare waxaan kaaga mahadcelinayaa imaashaha aad noo timid iyo sida aad u ogaatay dareenka iyo rabitaanka dadka shacabka reer koonfur galbeed oo aad qof aad ula istaagtay oo aad maxay ahayd sida ururada bulshada yihiin aad ula kulantay oo hay'adaha dawladda aad ula kulantay oo aad u wareysatay baahiyadooda isla markiina wixii ugu dhaqsaha badnaana aad ka jawaabtay wixii kaloo dhimanaana aad rabtay haddana ka jawaabtid aad iyo aadan kaaga mahadcelinaynaa mudane ra'iisul wasaare mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow koonfur galbeed ku soo dhawow xarunta ku-meel gaarkeed ku soo dhawow dadka shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan waxay diyaar u yihiin dowladnimada iyo horumarka ummadda soomaaliyeed iyo wadajirka iyo sharafta iyo karaamadii dowladnimadii soomaaliya oo la soo celinayo mudane ra'iisul wasaare dadka reer koonfur galbeed waxay ku faraxsan yihiin oo ay diyaar u yihiin oo ay jecel yihiin oo ay kaaga mahadcelinayaan howlaha aad ka wado gobolada dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan xoreynta iyo dib u xoreynta gobolka shabeellada hoose iyo obereshinada ka socdo aad iyo aad u mahadsan tahay ay kaaga mahadcelinayaan dadka reer koonfur galbeed waxaana ku faraxsannahay shaqada aad ka wadid mudane ra'iisul wasaare waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay anigoo wakiilka ah shacabka reer koonfur galbeed sida dowladnimada leh oo midnimada leh sharafta iyo karaamada leh oo aad u soo celiseen qarannimadii soomaaliya adiga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo mudane ra'iisul wasaare waxaan ku faraxsannahay oon kaaga mahadcelinaynaa shaqada fiican oo aad ka wado dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta galmudug iyo dib u awooddeeda maamulkeeda aad iyo aadan ugu faraxsannahay ayadana waa kaaga mahadcelinaynaa mudane ra'iisul wasaare sidaad og tahay koonfur galbeed waxay ka kooban tahay 3 gobol baay iyo bakool iyo shabeellada hoose waxaa joogo shacabka ugu badan soomaaliya maamul goboleedyadeeda populationka ugu badan boqolkiiba 70 waa dhalinyaro waxay u baahan yihiin inay helaan shaqo abuur mashaariic waxbarasho caafimaad iyo nolol waxa ay ka sugayaan oo ay ka tirsan yihiin oo ka mid yihiinna waa dowladda federaalka iyo xukuumadda hadda jirto oo adiga ra'iisul wasaaraha u tahay iyo annaga oo u qaadimayno oo fariintooda gaarsiinayno wax allaale wixii loogu soo dhiibay nagula aaminana aan gaarsiin doono insha allah mudane ra'iisul wasaare dadka reer koonfur galbeed saa la socotid waa dad dowladeed waa dad dowladnimada jecel waa dad wanaagga jecel waa dad isku filan oo shaqaysto oo wax soo saar leh oo deegaanadooda ku kalsoon kuna filan yihiin khayraadka ku jiro waxay haystaan dhibaato ah haysato waxaa ku habsaday abaaro soo noqday iyo dad nabaddiid ah oo shabaab la yidhaaho ayaa jidadka kala xiray waxaynu u baahan yihiin dowlad u soo istaagto oo isu furto jidadka iyo degmooyinka gobolada reer koonfur galbeed waxaan kaa rajaynaynaa indhahaadaad ku aragtay hadduu ilaahay yidhaaho markaad noqotid in reer koonfur galbeed ay helaan jid ay maraan ninka ugu horreeyo bilaaban aad noqotid hadduu ilaahay yidhaaho safarkan safarka ku xigo waxaan kaa codsanaynaa mudane ra'iisul wasaare inaad noogu soo noqotid adiga oo baabuur saaran xamar aad ka soo baxid oo baydhabo noogu timaada hadduu ilaahay yidhaaho mudane ra'iisul wasaare sidaasoo kale sida aad markaad baydhabo timid aad xudur u tagtay waxaan kaloo codsanaynaa inaad haddana xudur baabuur ku tagtid hadduu ilaahay yidhaaho waxyaalihii aad soo aragtay oo ugu muhiimsanaa oo dadka reer koonfur galbeed maanta ay u baahan yihiin oo shacabkii iyo odayaashii dhaqanka iyo siyaasiyiintii iyo ururada bulshadoo dhan ay kaa codsadeen waxay ahayd amni in ciidamo loo dhiso jidadkooda la isu furo ay dib u helaan dowladnimadoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii ay soo noqoto waxaan kaa rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaho inay arrintaas aada suurtagelin doonto wax allaale wixii ka suurtagala